safiirkii dowladda Turkiga u fadhiyay Soomaaliya muddo xileedkii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Dr. Kani ayaa digniin kama dambaysa u diray dowladda Turkiga isagoo sheegay in xaaladda Soomaaliya ay hadda marayso meel kala guur ah oo qarka u saaran in gebi ahaanba la waayo dowladnimada dalka haddii aan la aadin waqtiga kala guurka ah iyo qaabka loo maareynayo doorashooyinka dhaca gudaha Soomaaliya. Safiirku waxa uu sheegay in xaaladda Soomaaliya hadda ay ku jirto ay tahay mid si weyn indhaha caalamka loogu hayo isla markaana ay burbureen dhammaan heshiisyadii la filayay inay dhex maraan dowladda uu muddo xileedkeedu dhammaaday iyo sidoo kale mucaarad ka bannaan jooga. Safiirku waxa uu sheegay in si weyn uu u garanayo xilligan oo kale waxa ka dhaca gudaha Soomaaliya, balse waxa uu sheegay in la yaab ay ku noqotay in safiirkii dowladda Turkigu uu xilligan ookiyaalo cagaara u gelinayo madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weliba uu taageero u muujinayo. Safiirkii hore waxa uu sheegay in taageeradaasi aysan waxba soo kordhin karin isla markaana dhinacyada Soomaalida haddii aan gacanta laga qaban dagaallo qaraar ay dhex mari karaan. Muqdisho ayuu sheegay inay tahay meel hubka lagu haysto dhinacyo kala duwanna hubku uu gacantooda ku jiro, taasoo adkeynaysa in hal koox ay ku amartaaglayso. Waxa uu sheegay in dowladda Turkiga ay tani ku noqon doonto ceeb weyn, wuxuuna hoosta ka xariiqay in la joogo waqtigii dowladda Turkigu ay dib u fiirin lahayd dhinacyada u qaabilsan Soomaaliya isla markaana ay ka shaqayn lahayd sidii ay dhammaanba dhinacyada Soomaalida dhexdhexaad ugu noqon lahayd. Waxa uu sheegay in lama huraan ay tahay in dib laysula akhriyo taariikhii hore ee Turkiga iyo Soomaalida isla markaana qaabkii lagu wada shaqayn jiray ee lagu kala ammaan heli jiray dadkuna isku rabeen wax lagu wado. Madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safiirku uu ku tilmaamay in loo arkayay nin waaye arag ah oo waqtiyo adag soo shaqeeyay, balse hadda waxa uu sheegay marka la fiiriyo ficiladiisu inay u muuqdaan inuusan waxba ka baran dhacdooyinkii iyo sidoo kale tillaabooyinkii hore ee uu soo arkay, taasoo ka dhigaysa in xitaa safiirku uu la yaaban yahay madaxweyne Soomaaliyada burbursan 2 jeer loo doortay oday 70 jir ah oo weliba PhD haysta iyo habdhaqanka la yaabka leh ee kaliya-talisnimadu biyo dhigatay. Xasan Sheekh Maxamuud Culusow, madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya, dunida oo dhan ayaa la yaaban ficilada uu la soo baxay, hanjabaadaha uu dirayo iyo sidoo kale cashirada uu ka soo qaadanayo Geelle iyo Musafani isaga oo baal maraya wadamada deriska ah ee horumarada sameynaya isla markaana madaxdoodu ay isbedbedelayaan. Tillaabada safiirkan uu qaaday waxa ay si adag u soo jeedinaysaa dareenka dadka Turkida isaga oo si toos ah tooshka ugu ifiyay safaaradooda iyo waxyaabaha ay ka wado gudaha magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa loo arkaa tani inay soo dedejinayso in madaxda sare ee waddanka Turkigu ay dib u eegaan galkooda la shaqaynta Soomaaliya isla markaana ay meesha ka saaraan ficilada xanafta leh ee keeni kara in qaybo ka mid ah siyaasiyiintu ay ka aamin baxaan shacabka Soomaaliyeedna qaybo badan oo ka mid ah hadda ayba u arkaan Turkigu in uu khayraadkooda dhacayo, taasoo xaaladda uga sii dari karta. Hadalka safiirkan ayaa loo arkaa inuu yahay dharbaaxadii ugu cuslayd ee ku dhacaysa siyaasadda fashilka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud Culusow oo sharci darro ku fadhiya Villa Soomaaliya. In Turkidu markan ay bannaanka ka istaagaan qorshaha Xasan Sheekhna waa geedkii ugu dambeeyay ee uu ku gabanayay oo markan loogu galay. Haddaba ma isku sii dayi doonaa ficilada la yaabka leh ee kaliya-talisnimada?